asalaamu calaykum dhalinyaro ku soo dhowaada qaybtii kow iyo tobnaad ee taxanaheena. qaybtii tobnaadna waxay noo joogtay xamdiyo oo doonaysa inay isdisaayada. haddana marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkeena laag saartaan, sidoo kalena aad janalkeena kusoo biirtaan si aad noo dhiirigelisaan idinka. daqiiqadii ugu dambaysana intaysan xamdiya istirin ka hor waxay beddeshay maankeeda maadaamay u baqday cunugteeda. intaa kadibna waxay ka soo degtay meesha. intaa dabadeedna ayadoo eynaysa ayay meeshaa fadhiisay. dadkii muddada marayana wakhtigaa xamdiye waxay u maleeyeen inay baahan tahay, sidaa darteedna lacaga ayay u aruuriyeen ayaga. wax yar kadibna xamdiya waxay qaadatay lacagta si ay ugu soo gadato cunto ay cunto ayada. goob kalena waxaan aragnaa fariida oo weli la sheekaysanaysa ummu axmed. naagtaana wakhtigaa waxay ayada ku qancinaysay fariida inay isaga tagto faadil maadaamay wax isku dhali waayeen ayaga, sidoo kalena uu hanti ahaan jeebkiisa u kori waayey. si kastaba ha ahaatee fariida waxay ayada u sheegtay maadaama saaxiibkeedu ayada ka tegi waayey inaysan ayadana ka tegayn. ummu axmedna ayadoo arrintaa ka xanaaqsan waxay ku tidhi, waxaad tahay gabar aan caqli lahayn oo aan waxba kala socon waxa ka jira adduunka. sababtoo ninkaaga hadduusan hantina kuu haynin awlaadna aada u dhalin maxaa kula joogtaa adiga. goob kalena markaan ku laabana xamdiya maadaamay aada u gaajaysneed mar kale ayay cunto dalbatay ayada. goob kalena faadil wuxuu la joogay saaxiibkii kaasoo wakhtigaa asaga u soo bandhigay mashruuc muhiim ah. run ahaantiina haddii aan mashruucaa maalgashanno mustaqbalka lacaga fiican ayaan ka helaynaa, waxaana noqonaynaa dad taajiriina. haddana saaxiib adiga waxaan kaa rabaa lacagta aa haystii oo dhan inaa mashruuca igula maalgeshid, hana ka baqin inay lacagtaada dhunto, sababtoo ah bil kasta faa'iida ayaa helaysaa adiga. faadilna ugu dambayntii wuxuu ku qancay mashruuca. goob kalena xamdiya intay suuqa joogtay waxay raacday gawaaridii aadaysay guriga abtigee. haddana gabadhan maadaama aysan wax dada haysan waxay ku khasbaneyd meel uun inay afka saarto si ay nolosheeda horay ugu sii wadato ayada. dhinaca kalena markaan ku laabanno ummu axmed in badan waxay isku dayaysay inay fariida ku qanciso inay ninkeeda iska furto. haddii aadan ninkan faqiirkaa guursan lahaynna noloshaan dulligaa kumaadan noolaateen adiga. haddana fariida waxaan adiga kugula talinayaa inaa arrintaa ka fikir, naftaadana aa go-aan ku gaarti si aad mustaqbalka noloshaa mid dhaantaa u heshay adiga. xitaa kariimna maadaamuu hadda weynaado wuxuu u baahan yahay waxbarasho sare, sidaa darteedna waa inaad noloshiinna wax ka beddeshay aadna ishormarisaan idinka. si kastaba ha ahaatee fariida naagta waxay u sheegtay ninkeeda inuu yahay qof wanaagsan kaasoo dharag iyo gaajaba kula soo joogay ayada, sidaa darteedna aysan ka tegayn. ummu axmedna markii ugu dambaysay waxay isku dayday inay fariida ku qanciso arrinta, laakiin maadaama ay ka diiday waxay ka quusatay arrinta. intaa kadibna waxay isaga tagtay goobta. goob kalena xamdiya waxay tagtay masaajidka si ay u ducaysato maadaama hadda ay xaaladeeda aad u cakirnayd ayada. dhanka kalena fariida maalinta intay dharka dhaqaysay waxay ka fikiraysay arrintii ummu axmed usoo bandhigtay ayada. goob kalena xamdiya ugu dambayntii markay masaajidka tagtay 2 ragco ayay tukatay ayada. intaa kadibna way ducaysatay. dhanka kalena faadil wuxuu qaatay lacagtii asaga iyo xaaskiisa ay wada kaydsadeen. wakhti kadibna fariida markay guriga ku soo laabatay oo armaajada lacag meeshaa taalla ayay aragtay, isla markiina waxay fahantay lacagtii ay kaydsadeen inuu ninkeeda hadda qaatay asaga. dhinaca kalena xamdiya intay masaajidka joogtay si lama filaana waxaa ayada ugu timid haweeney la yidhaahdo ummu maxamed iyo saaxiibadeed oo la socotay. isla markiina gabadhan markay xaaladeeda arkeen way u yara damqadeen, maadaama ay duruufteeda arkeenna waxay weydiiyeen inay lacag u baahan tahay in kale. intaa kadibna xamdiya markay naagaha wareysteen waxay u sheegtay inay tahay haweeney jaariyada oo ka shaqaysa guryaha. ninkaygana aniga ilama joogo waayo waa askari wuxuuna jiraa furinta hore ee ciidanka. si kastaba ha ahaatee ummu maxamed maadaamay u damqatay xamdiya saaxiibadeed waxay ku tiri gabadhan waan kaxaysanayaa waxaana geynayaa gurigayga si ay ugula noolaato ayada, sidoo kalena ayadu waxay iga caawinaysaa shaqada guriga. laakiin saaxiibadeed ayaa ayada kula talisay inaysan naagtan soo dhowaysan, sababtoo ah waa beenley waxaana laga yaabaa musiibo weyn inay lugaha noo geliso annaga. si kastaba ha ahaatee ummu maxamed maadaama ay ahayd haweeney naxariis badan waxay go'aansatay inay xamdiya gurigeeda u kaxaysato, sidoo kalena ay u shaqayso ayada ayna lacag ku siiso arrinta. intaa dabadeedna ummu maxamed xamdiya waxay weydiisay mushaarkeeda intuu noqonayo, laakiin xamdiya naagta waxay u sheegtay wax lacaga inaysan ka doonayn, keliyana waxaan doonayaa guri aan ku wada noolaano aniga iyo gabadhayda. intaa kadibna goobta ayay ka soo kaxaysay ayada. dhinaca kalena faadil markuu wakhti kadib guriga ku soo laabtay xaaskiisa waxay weydiisay wax ku saabsan lacagta iyo goobta u geeyey asaga. si kastaba ha ahaatee wuxuu u sheegay lacagtii inuu shirkad ku diray asaga. raggaana sidoo kale waxay ii sheegeen bil kasta inay lacag faa'iida ay siinayaan aniga. si kastaba ha ahaatee fariida wakhtigaa waxay la yaabtay lacagtii ay ku soo tiiriya tacab beele inuu ninkeeda gacanta ka saaray qof uusan garanayn. intaa kadibna waxay asaga ku tiri hadalkaaga kuma qanacsani, waxaana u malaynayaa inaa been ii sheegaysi,
maadaama qof aan la garanayn aad lacagtii siisay. Si kastaba ha ahaatee, Faadil arrintaa aad buu uga xanaaqay, wuxuuna ku yidhi haddii aadan hadalkayga maqlayn iga aamus adiga, sababtoo anigu waxaan ku dadaalayaa sidaan nolosheenna wax uga beddeli lahaa. Goob kalena waxaan aragnaa Xamdiya oo la socotay Maxamed, taasoo gaari saaran wakhtiga. Laakiin intay gaariga saarneed si lama filaan ah waxay waddada ugu aragtay Faadil, si uusan u aqoonsanna wejiga ayay ka qarsatay asaga. Goob kalena Fariida intay keligeed guriga joogtay waxay tidhi nolosheeda oo dhan waxaan ku soo khasaariyey Faadil, haddana qalad buu iga galay. Qaladkaa asoona iga raaligelin ayuuna iga tagay asaga. Sidoo kalena Kariim hadda guriga ma joogo, gabadhii Xamdiye ahaydna horay ayay iiga carartay ayada. Qof kasta oo aan wanaajiyana wanaagayga igumuusan abaalgudin, dhibaato ayuuna iigu beddelay asaga. Axmedna way iga saxnayd markay igu lahayd ninkaaga iska fur adiga. Dhinaca kalena Xamdiya intay gaariga saarneyd way ooysay ayada. Wakhtigaana Maxamed markii ayada aragtay waxay ku tiri ha baqin, haddii aad rabtid goobtii aad ka timid waad ku laaban kartaa adiga. Si kastaba ha ahaatee, Xamdiya waxay naagtaa u sheegtay inay aad u faraxsan tahay maadaamay hadda heshay qof caawiya ayada. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibadda Maxamed waxay aad uga xanaaqsanayd Xamdiya maadaama aysan doonayn inay guriga tagto ayada. Si kastaba ha ahaatee, Maxamed ayaa ka celisay ayada. Wakhti dambeba habeenkaa aana dhammaantood waxay tageen guriga. Wakhtigaana guriga waxa ayaga ku soo dhoweysay haweeney waayeel ah. Wax yar kadibna Maxamed saaxiibadeed markay baxday oo ay gurigeeda aaday, Maxamed Xamdiya waxay u sheegtay inay musqusha gasho oo ay soo qubaysto, dharkan ay wadatana ay iska beddesho ayada. Gabadhana aniga ayaa kuu sii haynayo. Dhinaca kalena Kariim wakhtiga aad buu u oynayay maadaama saaxiibadiisii xaafadda kula noolaa ay u diideen asaga inuu kubadda la ciyaaro. Goob kalena waxaan ogaanaynaa Xamdiya gurigii ay tagtay inuu lahaa nin askariya oo lagu magacaabo Maxamed. Askariganna wuxuu ahaa ninkii qabay Maxamedda guriga keensatay Xamdiya. Haddana markuu guriga yimi wuxuu salaamay hooyadii, sidoo kalena wakhtigaa wuxuu wax ka weydiiyey xaaskiisa, waxaana loo sheegay inay bannaanka ka soo laabanayso ayada. Dhinaca kalena markaan ku laabanno Fariida iyo ninkeeda, aad bay ugu xanaaqsaneyd asaga, xitaana wakhtigaa waxay diiday inay la cuntayso. Sidoo kalena wakhtigaa waxaa isaga ku tiri ilaa goormaan cunaynaa dadka cunto ay nagu sadaqaysteen annaga, goormeesha noloshaan nolol dhaanta aan samaysanaynaa annaga. Markaan ku laabanna Xamdiyana, Maxamed waxay weydiisay gabadheeda. Maxamedna wakhtigaa waxay u sheegtay inay hadda jiifatay maadaamay ayada seexisay. Haweeneyday waayeelka ahna wakhtigaa markay Xamdiya la kulantay way soo dhoweysay iyadoo u sheegaysaa inay tahay gabadheeda oo kale. Markaan ku laabanno Fariidana hadda aad bay u fikiraysay, waxayna xaqiiqsatay hadalkii Axmed ayadoo u sheegtay inuu ahaa mid run ah, kaasoo ku saabsan ninkeeda. Wax kastay Faadil ayada uga sheegtana hadda way soo baxeen. Goob kalena Maxamed Fariida waxay u faraashtay jikada horteeda, ayadoo kule adiga iyo gabadhaada meeshaan seexda markaa alaabta soo dhaqday kadib. Xilli dambe oo habeenkaana Maxamed markuu shaqadiisa ka soo laabtay uu guriga soo galay si lama filaana wuxuu u arkay Xamdiya oo qolka fadhiga hurdaysa. Isla markiina wuxuu u yeeray xaaskiisa asagoo wax ka weydiinaya arrinta. Isla markiina waxay u sheegtay gabadha qisadeeda. Intaa kadibna qolkooda ayay galeen. Xamdiyana markay arrintaa aragtay iyadoo cabsanaysa gabadheeda ayay laabta gelisay. Dhinaca kalena Maxamed ninkeeda waxay uga sheekaysay qisada Xamdiyo, ayadoo kule gabadhan waa masaakiin, gabar yar ayayna wadataa. Haddana anigu waxaan u soo kaxaystay inay ayadana iga caawiso hawsha guriga, anigana aan siiyo waxay cunto iyo meelay ku hoyato ayada. Isla markiina ninka xaaskiisa wuxuu ka codsaday inay Xamdiya ugu yeerto si uu ula hadlo ayada. Wax yar kadibna markay Xamdiya u timid wuxuu ku yidhi halkan soo fadhiiso oo qisadaada iiga sheekay adiga. Wakhtigaana wuxuu ku yidhi haddii aad runta ii sheegtay waan ku soo dhowaynayaa, laakiin haddii aad been ii sheegtay wanaag igalama kulmaysa adiga. Aniguna maadaamaan ahay askari boolisa waxaan soo ogaan doonaa qisadaada dhabta haddii aad been ii sheegtay. Intaa kadibna wuxuu u sheegay inay qolkeeda aado ayna seexato. Xamdiyana markay meeshaa ka soo laabatay aad bay u walwalsanayd maadaamay hadda ka baqaysay Maxamed inuu beenteeda ogaado ayada. Sidaa darteedna wakhtigaa waxay go'aansatay berrito xilli hore inay wax kasta u sheegto asaga, laakiinse nafteeda ayadoo labalabaynaysa waxay ku qancisay maadaama aanan ninkaa waxba u sheegin maxaan uga baqayaa asaga, aniguna alle oo keliya ayaan talada saaranayaa. hadduu ninkaa bax yidhaahdana waan tagayaa, hadduu joog yidhaahdana gurigan ayaan ku noolaanayaa aniga. Goob kalena Axmed markaan gurigeeda ku laabanno hadda booyaaso cusub ayaa loo soo helay ayada. Dhanka kalena wakhtiga Fariida waxay ka fikiraysay hadalka Axmed sababtoo ah wax kastay horey ugu sheegtay hadda way soo baxeen. Sidoo kalena naagtan hadda waxay aad ugu xiistay gabadheedii Xamdiya, waxayna tiri Xamdiya anoo sidaa ugu soo tiiriya tacabeela ayay iga tagtay, haddana waxaan rajaynayaa walaalkeedna inuu sidaa oo kale iiga tago aniga. Dhinaca kalena Xamdiya subaxdii xigtay
si lama filaan ah qolka fadhiga waxay ugu aragtay Abu Maxamed. Waqtigaana aad bay uga baqday asaga. Intaa kadibna Umu Maxamed waxay ayada ku tiri, soo kaxee xajiya, sidoo kalena musqusha gee adiga ah. Waqtigaana intay islaanta waayeelka caawinaysa waxay ayada weydiisay magaceeda. Isla markiina Xamdiya islaanta waxay u sheegtay magaceeda in la yiraahdo Xamaama. Islaantii waayeelka ahaydna waxay ku tiri, magacaagu wuxuu u daalan yahay sida adiga u daalan tahay oo kale. Xamdiyana islaanta isla markiiba waxay weydiisay sidee ku ogaatay arrinta. Xaajiyana waxay ugu jawaabtay, wejigaaga markaan fiiriyo waxaad u egtahay qof qalbi ahaan u daalan adiga. Goob kalena Kariim wuxuu qaaday rootiga si uu maqaayadaha magaalada ugu qaybiyo. Intaa kadibna uu iskoolkiisa u sii aado asaga. Waqtigaana Faadil intuu xaaskiisa la joogay wuxuu weydiiyey sababta ay saaka xilli hore ugu soo kacday ayada. Waxayna u sheegtay inaysan wax shaqaa jirin. Si kastaba ha ahaatee ninkeeda waqtigaa wuxuu ayada u sheegay maanta inuu doonayo inuu meel kala aado. Intaa kadibna Xamdiya way ku sii xanaaqday asaga maadaama ay doonaysay inuu shaqadiisa aado. Intaa dabadeedna waxay ku tiri, sanado badan ayaan adiga dartaa dadka booyaas ahaan ugu shaqaynayay. Waxaana islahaa noloshiina sidaan ha ka hormarto. Laakiinse sidaa hadda wuxuu wadiyey. Muu malaynaya inay arrintaa dhacayso. Haddana waxay u egtahay inaan ku daalay la jooggaaga. Sababtoo ah wax kasta oo aan wanaagsan oo aan kuu sameeyey. Wax abaale igama haysi. Cimrigaygii oo dhan agtaada ayaan ku khasaariyay aniga. Laakiinse adigu waxaad tahay qof madax adag oo aan wax abaale ii haynin aniga. Intaa kadibna way ka tagtay asaga. Dhinaca kalena Xamdiya intay guriga Umu Maxamed joogtay waxay la quraacatay Xaajiyo. Waqtigaana aad bay ugu faraxsanayd la joogisteeda. Goob kalena Fariida mar kale waxay u tagtay Umu Axmed. Waxayna u sheegtay wixii ku dhacay ayada. Umu Axmedna waqtigaa waxay ayada ku tiri, wax kastoo aan kuu sheegaya waxay ahaayeen wax xaqiiqo ah. Si kastaba ha ahaatee Fariida naagta hadda waxay weydiisay, sidee baan nin kale u guursan karaa aniga? Si kastaba ha ahaatee naagta waxay ayada u sheegtay weli inay dhalinyaro tahay. Ayna rag badan heli karto ayada. Waxaana kuu keenayaa nin darawala oo lacag badan haysta. Haddii aan ninkan iska furtay adiga. Si kastaba ha ahaatee Fariida ma aysan aqbalin hadalka Umu Axmed. Maadaama ay ceeb u arkaysa ayada. Maadaama Umu Axmed arrintaa ka xanaaqdayna waxay ayada ku tiri, maxaa ninkan hadda kula joogtaa hadduusan wax hantiya haysan. Sidoo kalena wax ilma aynaan isku dhalin adinka. Dhinaca kalena Umu Maxamed Xamdiya waxay ka codsatay inay guriga soo nadiifiso. Xamdiyana waqtigaa waxay go'aansatay in guriga ay si kaliya laaba ay u soo nadiifiso si ay u soo jiidato dhammaan dadka jooga guriga. Dhinaca kalena Faadil maqaayadda wuxuu ugu tagay saaxiibkii asagoo waqtigaa weydiinaya mashruucan inuu faa'iido leeyahay iyo in kale. Si kastaba ha ahaatee saaxiibkii waqtigaa wuxuu asaga u sheegay inuu arrintaa damaanad qaadayo. Ninkaana waa qof lagu kalsoonaan karo ee habaqi. Bil kastana faa'iido joogta ayaa samayn doontaa adiga. Markii aad mashruucan maal gashatay mar walba lacagtaada sii kordhisina lacagta aad billaha u helaysa way sii badan doontaa. Waqtigaana Faadil maadaama uu mashruucan aad uga helay saaxiibkii wuxuu ka codsaday inuu lacag deymiyo asaga. Si kastaba ha ahaatee saaxiibkii wuxuu ka ogolaaday arrinta asagoo hal shardi ku xiraaya kaasoo ah haddii aad lacagtaada weydi waxba iima qabsan karti adiga. Ugu dambayntiina wuxuu ogolaaday arrinta. Goob kalena Xamdiya intay guriga nadiifinaysay waqtigaasi lama filaan ah Umu Maxamed ninkeeda ayaa soo wacay. Wuxuuna ku yiri Xamdiya waxaa weydiisaa gurigii hore uga soo shaqaysay ayada. Isla markiina waxa uu sheegtay inay ka soo shaqaysay guriga Umu Rida. Waqtigaana Xamdiya maadaama su'aalaha lagu badiyay aad bay u baqday ayada. Isla markiina ninka askariga taleefanka ayuu ku jaray ayada. Intaa kadibna ninka askartiisa wuxuu ku amray inay u soo ogaadaan macluumaadka guriga. Dhinaca kalena Xamdiya waqtiga Umu Maxamed waxay u sheegtay inaysan doonayn inay gurigan ka tagto ayada. Umu Maxamedna waqtiga ayadoo dejinaysa waxay u sheegtay inaysan arrintaa ka baqin. Ninkaygana kaliya wuxuu doonayaa inuu xog ogaado asaga maadaama uu askari yahay. Dhinaca kalena waxaan aragnaa Faadil oo hadda la kulmay ninkii madaxda ka ahaa mashruuca. Intaa kadibna lacagtii uu hayo oo dhan ayuu ku wareejiyay asaga. Si kastaba ha ahaatee ninkaa waqtigaa wuxuu u sheegay haddii aad maanta dib u soo dhici lahayd lacagtan kaamaanan qaban lahayn ilaa bil kadib. Sababtoo ah hadda waxaa tahay qofkii ugu dambeeyay oo aan lacag ka qabta adiga. Goob kalena Umu Maxamed waxay u yeertay Xamdiya ayadoo kule waxaa ku yimi askari ka socda saldhigga. Isla markiina ninkaa markuu ayada weydiiyey ninkeeda magaciisa waxay u sheegtay in la yiraahdo Sacdi Rida. Si kastaba ha ahaatee maadaama ay waqtigaa su'aalaha badan oo la weydiinayay ay ka baqday waxay sheegtay ninkeeda in la yiraahdo Cabbaas. Intaa kadibna askariga markuu macluumaadka qoray wuxuu dib ugu laabtay saldhigga si uu taliyihiisa ula wadaago. Si kastaba ha ahaatee waqtigaa gabadha cabsida ayaa ku sii korortay maadaama ay ka baqaysay haddii beentan ay sheegaysa la ogaado in ciqaab daran la marsiiyo ayada. Muddo kadibna Faadil markuu saaxiibkii la kulmay wuxuu u sheegay bishaan lacagtii loo ballan qaaday inaan la siinin ayaga.
macquulna maaha lacagteena inay wax faa'iido dhali weyso ayada si ay faa'iidadeena u sii korortana waa inaad lacag deyna ka soo qaadaa xaaskaaga iyo ehelkeeda si faa'iidada mustaqbalka aan helayna ay u sii badato muddo kadibna faadil markuu xaaskiisa la qadaynayo wuxuu ku yidhi waxaan rabaa lacagta aad kaysatay adiga inaad igu wareejisay si aan mashruuca ugu darsado sababtoo ah markay faa'iido dhasho dib ayaan kuugu soo celinayaa si kastaba ha ahaatee wakhtigaa waxay weydiisay lacagtaa wuxuu ku qabanaya asaga maadaama uu wax sax u sheegi waayana waxay u diiday inay lacagteeda siiso ayadoo kule lacagtan anoo dumara ayaa si dhibla ku soo shaqeeyey sidoo kalena lacagtan naftayda ayaan ka xarimay si dhibla ayaana ku soo shaqeeyey aniga mana bixin doono wakhtigaana faadil wuxuu ku xanaaqay xaaskiisa wuxuuna aaday qaybta kore intaa kadibna kariim ayaa u yimi ayada wuxuuna ku yidhi maanta iskoolka ayaa layga soo ciid sababtoo ah waxaa laygu yidhi waa inaa keentaa aabbaha wax yar kadibna fariida markay ninkeeda qolka kore uga daba tagtay waxay aragtay lacagtii eeg haysatay asagoo la soo baxaya intaa kadibna waxay isku dayday inay arrintaa ka hor istaagto asaga si kastaba ha ahaatee wuu kala tuuray lacagtaana meesha ayuu ka qaatay intaa kadibna guriga ayuu isaga tagay asaga goob kalena guriga umu maxamed intii xamdiya joogtay dhammaan qoysku way wada cuntaynayeen ayaga wakhtigaana si lama filaana guriga waxaa u yimi askari lagu magacaabo casaam kaasoo hadda ka hor xamdiya waddada ku arkay ayada goob kalena waxaan aragnaa fariida oo oynaysa wakhtigaana waxaa ayada u yimi wiilkeeda kariim asagoo kule markaa weynaada lacagtaada oo dhan hooy aniga ayaa dib kuugu soo celin doonaa fiidkiina waxaan aragnaa faadil oo la socda saaxiibkii wakhtigaana saaxiibkii wuxuu ku yidhi muddo dhowr bilooda ayaan sugayaa lacagtan inay wax faa'iida iga soo gasho ilaa haddana wax lacaga kamaanan helin si kastaba ha ahaatee saaxiibkii wakhtigaa wuu rajo geliyey asagoo u sheegaya mashruucan asaga xitaa inuu lacag badan gashtay sidoo kalena uu sugayo xoogaa kadibna faadil markuu guriga ku soo laabtay wuxuu dareemay inuu qaldan yahay sidaa darteedna xaaskiisa ayuu raaligeliyey asaga si kastaba ha ahaatee waxay iska diiday raaligelintiisa ayadoo kule aad baan ku nacay haddana ma doonaya gurigaagii iyo adigaba inaan hal daqiiqa xitaa kula sii joogo sababtoo ah si xun ayaa iila dhaqantay haddana waxa keliya oo adiga aan kaa codsanayo waa inaad kariim aabihiis noqotid si iskoolka u sii dhigto asaga goob kalena xamdiya intay guriga umu maxamed joogto ninkeeda ayaa si lama filaana dhammaan albaabada u soo xiray wakhtigaana gabadha waxay ka baqaysay in sirteeda ay kashifanto ayada subaxdii xigtana askariga shaqadiisa ayuu aaday dhinaca kalena fariida mar kale waxay ku laabatay guriga umu axmed si ay shaqo meesha uga soo qabato ayada sidoo kalena wakhtigaa naagta waxay ayada u sheegtay ninkii darawalka in beerta ay kula kulansiinayso ayada ugu dambayntiina fariida waxay aqbashay dalabkii ay marar badan u soo bandhigtay umu axmed goob kalena faadil intuu kariim la quraacanayo wuxuu u sheegay inuu u tago aabihii si uu warqadda dhalashada uga soo qaato asaga kariimna wakhtigaa wuxuu iska diiday inuu aado aabihii si kastaba ha ahaatee faadil wuxuu asiga ku qanciyay labadoodaba inay meesha wada tagaan ayaga goob kalena xamdiya umu maxamed waxay u sheegay inay hawsheeda dhammaysato sababtoo ah maanta adiga iyo walaashayba suuqa ayaan idin geynayaa si aan dhar cusub idinkugu soo iibiya idinka wakhtigaana xamdiya sidoo kale waxaa lacag siiyey cisaam kaasoo ahaa walaalka abu axmed sidoo kalena wuxuu u sheegay lacagtan inay wax kastay u baahan tahay ay ku soo iibsato ayada goob kalena fariida intay joogtay guriga umu axmed si lama filaana waxaa ayada loola kulansiiyey ninkii darawalka ahaa wakhtigaana markuu ayada arkay aad buu uga helay sababtoo ah waxay ahayd gabar aad u qurux badan markaan ku laabanna xamdiyana waxay suuqa u raacday umu maxamed meeshaana dhar cusub ayaa looga soo iibiyey ayada iyo gabadheedaba si arratir loogu sameeyo dhinaca kalena faadil iyo kariim ugu dambayntii waxay tageen guriga xaati ninkaana markuu ayaga meesha ku arkay wuxuu ku yidhi maxaa qaldan maxaase iigu soo laabateen aniga si kastaba ha ahaatee faadil ninkaa wuxuu u sheegay inuusan hadda doonayn inuu ilmihiisa dib ugu soo celiyo sidoo kalena wax kale kaama doonayna adiga keliyana waxaan kaa rabnaa kariim inaad siisay warqaddiisa dhalashada si iskoolkiisa iyo waxbarashadiisa uu sii wato si kastaba ha ahaatee haati markuu ogolaaday inuu dhalashada siiyo wiilkiisa si lama filaana goobtaa waxaa u timi sundus waxayna hor istaagtay arrinta qaybtii 11aad ee taxanaheennana meesha ayay ku soo dhawaatay haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalka fadlan muuqaalkeena laag saar si aan ugu soo darno qaybaha kale ee taxanahan xiisaha leh